أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسن allihii naga dhigay dad muslimiin ah, allihii noo sharciyeeyey cibaadooyin kala duwan oo noo ziyaadinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u dhowaano, cibaadooyin noo kordhinayo in jannada aanu shaqaysanno, cibaadooyin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kor ugu qaadayo sharafteenna iyo qiimaheenna iyo cizigeenna. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu manaystay, noogu nimceeyey bil ka fadli badan bilaha oo dhan. waa bisha ramadaan, waa bisha soon, waa bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa loogu tago, yacni muddada 29 maalmood ama 30 maalmood cuntadii iyo cabitaankii iyo waxyaalihii naftaada xalaasha u ahaa ee jecleed. ikhwaani, iyadoo bisha ramadaan ay cibaado tahay, haddana waxaa jirta walaalayaal cibaadooyin aada u qiimo badan oo bisha ramadaan gudaheeda naloo sharciyeeyey in aan samayno, oo ay ka badan tahay acmaashii markii hore aan samayn jirin ajirkii laga heli jiray. waxaa ka mid ah walaalayaal oo xisadan maanta aan ku qaadanaynaa ramadaanu walqur'aan, qur-aanka iyo ramadaanka. alqur'aan wasawm, bisha ramadaan iyo qur-aanka oo la akriyo qiimaha iyo macnaha ay isu leeyihiin. walaalayaal, qur-aanka oo la akriyaa waqti walba ayuu qiimo leeyahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كوا إلهي كتابك سأخري سبحانه وتعالى oo salaada toosiyo, oo yacni muxuu ahay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqa bixiyo, yarjuuna tijaaratan lan tabuur, waxay rajaynayaan tijaaro, ganacsi aan marnaba muxuu ahay baaba-ayn. qur-aanka oo la akhriyaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa wuxuu ku tilmaamay in halkii xaraf oo aada akhrisaa yacni 10 ajir aad ka helaysid. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, xaraf kasta oo qur-aanka ah akhrisaa 10 ajir aad leedahay. ma dhahayo alif laam miim xarf, ma dhahayo, walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun. alifka waxa weeye xaraf gaar u taagan, 10 ajir ayuu leeyahay. laamka waa xaraf, 10 ajir ayuu leeyahay. miimkana waa xaraf, 10 ajir uu leeyahay. bal ka waran maalintii haddii aad akhrisid 1 jus, 2 jus, 3 jus haddii akhrisid, ajirka ahlisid aad ayuu u badan yahay. haddii bisha ramadaan ay kusii jirtane, allahu akbar, bisha waa bishii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku sharfay inuu qur-aanka soo dejiyo. ikhwaani, qur-aanka waad ogtihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay shifaa, daawo, wacdi iyo waano inuu dadka u yahay, hanuun inuu noo yahay. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. waxaa alla xaggiisa idinka yimid dadow wacdi iyo waano iyo wax laabta u daawo ah, hanuun idin yimid, naxariis waxa u ah mu'miniinta. waa maxay? qur-aanka weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay in uu yahay midka dadka ku hago dariiqa wanaagsan. إلهي سبحانه وتعالى إسوى كورما وحيري في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ضدك وحويه هنون، ضدك مؤمنين تنو بشارين يا قرآنك فضليس وحكم ذا. إلهي سبحانه وتعالى إن أوير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. داو أيوكويا هذا حنوصت إسقى أسكو آخرين إسا قلبي جاء أيو نظيفين يا حمانتي حقد أيو كسارية.
quraanka intaa waxaa u dheer maalinta qiyaamaha haddii la yimaado darajadaadana kor u qaadayaa, haddii culays iyo wax ku haysteenna wuu kaa fujinayaayo ilaahay buu kaaga ergeynayaa. qur'aanka iyo soonkaba yashfacaani yowma alqiyaama, maalinta qiyaamo qofkii saaxiibkooda ayay u shafeeco qaadayaan. ka waran bal qofka hadduu soon iyo isku darsado qur'aan akhriskii. wuxuu kaloo nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam yuqaalu lisaaxibi alqur'aan iqra' wartaqi warattil kamaa kunta turattilu fi ddunyaa faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. waxaa la dhihi doonaa maalinta qiyaamaha akhri darajooyinka jannadana sii kor, warattil kala dhigdhig kamaa kunta turattilu fi dunya, adduunyada sida ugu kala dhigdhigi jirtay u kala dhigdhig. maxaa yeelay faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. bal ka waran qof baa qur-aanka ka bilaabi doono suurat albaqara, markaasuu suurat annaas geyn doonaa. waa dadka ku dadaala inta adduunyada joogeen, saaxiib ka dhigtay, jeebkooda gashtay, qalbigooda gashtay, xifdiye weeyaan. tartankaas ay aakhiro u diyaar garoowayaan. laakiin ninkii aan qur-aan ka baranin darajada jannada muxuu ku korayaa? tartanka xaqiiqada ah midka ramadaanka la qabto ama sanadkii hal mar la qabto ama jaa-isada lagu bixiyo maaha. tartanka xaqiiqiga ah waa tartankaas aakhiro qofka inuu u diyaar garoobo. qur-aanka markuu baranayo, marka aad qur-aanka akhrinaysid oo musxafka alla saaxibaysid, u akhri tartankaas qiyaamaha inaad ku guulaysatid darajada koobaad inaad noqotid. ka bilow fi suurati albaqara jus iska xifdi, 2 jus xifdi. waxaa ogaataa inta aad xifdisan tahay ayaa ajirkaaga la egyahay. walidaalika waa inaad ku dadaashid oo isdhahdid talow sanadkaani jannada meeqa ayaan ka helay, 1 jus ku talagal. sidaas ina yani qur-aankan uu kusii fudaanaya way. qur-aankaasi sidaas ah bisha ramadaan markii la gaaro macnihiisa iyo qiimihiisa iyo ajarkiisa wuu sii kordhaya. limaada? liana alqur'aana unzila fi hada shahr. qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan. ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka waxaana soo dejinay bisha ramadaan. fii suuratin ukhraa ilaahay wuxuu ku yidhi wa fii aayatin ukhraa innaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakah. habeen barakaysan ayaan qur-aanka soo dejinay. wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala innaa anzalnaahu fii laylati alqadar. habeenkii laylatulqadarka ayaan qur-aanka soo dejinay. aayadahaasoo dhan waxay tilmaamayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey bisha ramadaan. qur-aanka soo dejinta bisha ramadaan la soo dejiyey macnaha ay tusinayso waxaa ka mid ah qiimaha uu u yeelayo qur-aanka in lagu dhex akhriyo maalinta ama bisha ramadaan dhexdeeda lagu dhex akhriyo. walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo tadbiiqinayo ayaa jibriil wuxuu ahaan jiray inuu u yimaado fayudaarisuhu alqur'aan. laakiin markii ramadaanka la gaaray 2 jeer ayaa qur-aanka la dejiyey. waa khidmatayn moogta, 2 jeer qur-aanka la khatimay. macnaha si weyn ayay tusinaysaa soo dejinta qur-aanka. culimadu waxay leeyihiin xataa yani muxuu ahaaye salaf saalix way ku kala duwanaayeen. qaar baa qur-aanka khatimi jiray 2 maalmood, qaar baa 3 maalmood ku khatimi jiray, qaar baa 24 saacadood ku khatimi jiray. maxaa keenay? waa juhdiga iyo dadaalka iyo calaaqada bisha ramadaan iyo qur-aanka ilaahay ay tilmaami jireen. salaada ay ku dukan jireen, khaarij salaadna way ku akhrin jireen. qur-aanka oo bisha ramadaan la akhriya macnaha gaarka ah ay u xambaarsan yahay waxaa weeye in la muujiyo qofkiioo sooman oo baahan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa u baahan oo qalbigiisa uu furan yahay, laabtiisa ay furan tahay, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku u akhriyo. yacni waad ogtihiin qur-aanka sharafta uu leeyahay. laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu noo tilmaamaye qur-aanka in la soo dejiyey habeenkaasi waxaa lagu sii xijiyey, laguma eken keliya shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan. waa lasii macneeyey, waa lasii sharxay. waxaa la yidhi hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan. walaalayaal anoo nafteeda ka bilaabayo naftiina ku xijinayo waxaan rabnaa bisha ramadaan in aan ku caafir yani ku qurxino oo aan ku nuurino qiraa'at alqur'aan. ninka maalintii jadwalkiisa ka dhigto inuu akhriyo 5 jus ama 6 jus
qof ka dhiga 10 juz, qof ka dhiga 2 juz, qof ka dhiga 1 juz, laakiin marnaba in aysan dhicin adiga iyo quraanka bishaasi ina isweysaan oo aysan dhicin in aad ku mashquulso badeecada suuqa ka jirto. bishaasi waa bishii aad loo ganacsanayay, dharka ciida iyo raashinka iyo waxyaalaha adduunyada ku saabsan ayaa aad loogu dadaalayaa bishaasi. laakiin ogow yuusan kula tegin bisha ramadaan khayrka iyo wanaaga iyo qiimaha quraanka uu leeyahay in aad ilowdo aad isaga ilaali. wadaalika si hadda aan soo sheegaynay salaf saalix ridwaanullaahi tabaaraka wa tacaala calayhim, ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqdo salafkeeni dadkii suusuubanaa oo saalixiinta ahaa quraanka aad ay ugu dadaali jireen. bal xilliyada bisha ramadaan markay soo gasho way ka tegi jireen, way ka tanaasuli jireen acmaashii kale oo hayn jireen oo dhan, waxay u tafaruqi jireen, u faaruqi jireen in ay bartaan ama ay akhriyaan quraanka. ragga qaarkood hataa waxay ka tegi jireen in ay daraasayaan xadiidkii iyo fiqigii ay ka tegi jireen. imaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa attibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan wuxuu soo guurinayaa suwar aad u yaabaysa subxaana allah, yacni dadkaasi say qur'aanka ugu dadaali jireen. qaarkood waxay khatimi jireen marka caadiga ay yihiin fi kulli shahrayni khitma waaxida, qaara fi kulli shahri khitma samayn jiray, qaara fi kulli 10 layaalin khitma samayn jiray, qaara fi kulli 8 layaalin khitma samayn jiray. xataa yacni dadkii hore marka laga soo tago xiliyadan anaga aan joogno oo dadkeeni muslimiinta ahaa waqtigan joogo markaan soo qaadan ka soo gudub dadka Soomaalida, dad waxaa jiray aad u qiimo badnaa runtii yaa qurra ahaa oo quraanka la saaxibay iska daa ramadaanka xilliyada kale qaarkeed ku dhawaanayay inay maalintii khatimaan. waa arkay qof quraanka maalintii khatimay subaxii ilaa maqribkii quraanka ku khatimay subxaana allah. yacni ilaahayna uu ku sharfay hadda inuu yahay xaafidun likitaabi illahi tabaaraka wa tacaala. marka inaan quraanka ku dadaalno ayaa la doonaya. ibnu rajab alxambali raximahullah muxuu leeyahay kaana asalaf yatluuna alqur'aana fi shahri ramadaan fi salaati wagayriha. salafka waxay ahaan jireen kuwa ku dadaalo bisha ramadaan qur'aanka inay akhriyaan. qataada ibnu dacamata saduusi raximahullah kaana yaktamu alqur'aana fi kulli 7 layaali mara, yacni 7 mar hal mar u khatimi jiray. marka ramadaanka la gaaro khatama fi kulli 3 layaali marat, maalinka 10 juz akhrin kartaa subxaana, yacni si u fududahay. marka la gaaro 10ka dambane maalintaaba la khatimi jiray. النخعي إبراهيم النخعي wuxuu samayn jiray في يعني في العشر الأواخر ختمة ayuu samayn jiray, marka kalena 3 mar ayuu ku dhameyn jiray. imaamuna الشhaafiعي رaحimه الله isna sidaas oo kale intaasoo khitmo ayuu samayn jiray marka la gaaro bisha ramadaanka. yacni salafkeena saalixa ahaa dadkii wanaagsanaa saas ahaan jireen. ma rabnaa inaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ramadaankeena uu naga aqbalo, ma rabnaa ramadaankeena ajir badan in aan ka dhex helno, ma rabnaa inaan shaqaysano ajir ka badan midka soonka keliya oo afka la qabsado. dadka qaar waxay haystaan bisha ramadaan in looga faa'iideysto fursadeeda in la soomo oo keliya, oo dikri uusan jirin, xus ilaahay uusan jirin, khayr kale aan la qabanayn, wanaagga oo dhan lagu soo koobay in qofka uu soomo yahay keliya, oo laga yaabo maanta un iska hurdo habeenkii o dhanna uu soo jeeda subxaana allah. waa inaan fahamnaa waxaa jiro acmaal kale oo lagu nuurin karo, lagu iftiimin karo bisha ramadaan. ay ugu horeyso ilaahay kalaamkiisa oo la akhriyo subxaana wa tacaala. ilaahay quraankiisa oo la akhriyo waa waxyaalaha ugu muhiimsan weeyaan. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam sidaan hore idinkugu soo sheegay iyo jibriil يعني لما جرى يقتم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في سنة وفاته مرتين. لما جرى أيوك سو جديد قرآنك ولا ليال وداو قرآنك ولا ليال ونحريس قرآنك ولا ليال وهنون قرآنك ولا ليال wuxuu ku tusinayaa dhabaha wanaagsan iyo jidka toosan oo Ilaahay jannadiisa lagu gaaro. walaalayaal quraanka wuxuu kor u qaadaa sharaftaada iyo qiimahaaga. wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u biha akharin. qofkii quraanka dayacana Ilaahay hoos ayuu u dhigaa, qofkii quraanka qiimo u yeelana Ilaahay kor ayuu u qaadaa. حتى علومتك لا هدي أردت إنه كوف الضغط قرآن كان لجودة ذالا ذنوب هدي بدته قرآن كان الأخرياء يا لجودة ذالا إسجد داو النقناي عذره ده كان بحويان قرآن إلهي سبحانه وتعالى أيان الأخرياء سو مجدد قرآن كمرك إن كود ذاله أيان نفتي ده إن نفتي أوضة دار ميا جارهان بشأن رمضان إن قفل بقرش وسميسته هل كي ساعة وحكوا آخرين كرتها سبحان الله لوجس سدح جس سد لوك العرب فضوديه سد وفي عن وإنad hal juz ku akhrisid ama laba juz meeqa saac ayaa sheeka nooga baxdo
meeqa saac ayaa fadhi ku dir nooga baxo, meeqa saac ayaa nooga baxdo in aan waqtigeena ku qaadano yacni mobilku haditaankiisa ama Facebook inaan ku hadalno ama in aan samayno yacni saacado badan ba waxaa nooga baxo wax aan nafteenna adduun iyo aakhiraba aan u habboonin. waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal, bisha Ramadaan in aan ku tartanno qur-aanka oo ay noqoto shahru lmusaabaqa bilkhayraat, oo qof walba uu ku talagalo xaafadda qoyska inay samaystaan jadwal xilli quraan akhrinta, bacda alfajrka ha noqoto, bacda duhurka ha noqoto, habeenkii markii taraawiixda laga soo baxo ha noqoto, qoys walba inay samaystaan xalaqo oo qatmaha qur-aanka ay samaynayaan oo la isbaraarujinayo inay sameeyaan. subax haddii la samayn karo in la sameeyo, in sidoo kale muxuu ahaye qur-aanka ay samaystaan jadwal ah in qur-aanka la dhageysto, qatmo la sameeyo. arrimahaasoo dhan waxay noqon karaan waxyaala nafteena sharaf u yeelo, ilaahay subxaana watacaalana aan ugu dhowaano. ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu ramadaanka naga aqbalo, ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo min asaabiqiina alawaliin, dadka yacni dheereeyey fii shahri ramadaan, dadka ugu horeeya darajada fiican galay oo soonka laga aqbalay. in ilaahay subxaana watacaala tartanka aakhiro ee qur-aanka loo qaadi doono ilaahay subxaana watacaala hanuu guuleysiiyo. nafteyda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa bishan ramadaan in aan ka faa'iidaysano, aan uga faa'iidaysano khayraadka tirada badan. soon oo la soomaa keliya in aanan ka dhigin ka faa'iidaysigiisa. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.